الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد ولا ليال وحانك في كترين إن فوه أي جعليهين ونأيشان عدة كسفيسان كتل مامسان دقنك يا أخلاق ذا يا طبيعة ذا تيذا في عن وحانا دقنك في عن كمد دقنك الله يقانو الوقار دقنا شه يا سكينة ذا xasiloonida uu qofku xasiloon yahay ee uu degan yahay sidoo kale nafuhu waxa ay ka dheeraadaan oo ay ka fogaadaan ciddii ku sifaysan akhlaaqda iyo dhaqanka teeda aan fiicnayn ee laga wanaagsan yahay akhlaaqaha aan fiicnayn waxaa ka mid ah adaysh salfudaydka uu qofku salfudud yahay ama maangaabnimo waxa weeyaan uu la imanayo walaalayaal alwaqaar والطيش دغنانشها يصل فضيدكو والله بدقن oo iska soo horjeeda waqaarka iyo deganaanshuhu waa miftaaxa iyo furaha khayrka iyo wanaaga iyo guusha adduunyo iyo aakhiro salfudaydkuna waa albaabka murugada iyo halaaga adduun iyo aakhiro labadaba sida awgeed ayaa nabi aadam calayhi salaam iyo ciddii nabi aadan ku dayata ذريديسا كمid waxa dhaqankooda kamid ahaa alwaqaar deganaanshaha iyo xasiloonanta ayaa kamid ibliiska iyo shaydaanka iyo dhuriyadiisa iyo cidii raacday ku dayata iyagana waxa kamid dhaqankooda iyo akhlaaqdooda salfudaydka iyo degdega iyo u fiirsasho la'aanta ayaa markaa kamid arrinkaasna wuxuu ku sugnaaday in nabi aadam calayhi salaam ama arrinka cadayntiisu waxay noqonaysaa in nabi aadam calayhi salaam laga abuuray camuudana dabcigeeda waxay leeyihiin culimadu waxaa ka mid ah as-sukuun war-razaalah deganaansho iyo buuxnaansho ayaa markaa ka mid ibliisna dab baa laga abuuray dabkana waxaa ka mid dhaqankiisa ad-dayshu wal-khifa fudaydka iyo waxa weeyaan salfudaydka ayaa markaa ka mid sida awgeed ayaa wuxuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay walaalayaal in deganaanshaha iyo xasiloonida ilaahay jalla wacalaa xaggiisa ay ka ahaato degdega iyo u fiirsasho la'aanta iyo salfudaydkuna shaydaanka xaggiisa uu ka ahaado xadiidka imaam albayhaqi uu soo saaray can anas biisnaadin xasanahu alculamaa wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam atta'anii min allah waalcajalatu min ashaytaan ukaadinta iyo deganaanshuhu waa mid ilaahay jalla wacalaa xaggiisa ka ahaaday degdega iyo salfudaydkuna waa shaydaanka xaggiisa mid ka ahaaday deganaanshaha uu qofku degan yahay walaalayaal waa tilmaam ka mid tilmaamihii ambiyada iyo waxyaabihii ay isku qurxiyeen ayaa ay ka mid tahay alwaqaar والسكينة والرزانة وحو رسول كانوا عليه الصلاة والسلام حديث كإمام الترمذي وصاص عليه وإسناد كيسنا إسناد سجان وأهل العلم جاي السجان وحويان الصمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة دقن كفيعا يو دقناشها وكادينتا أريمها لو كاديو اللي فوقادو من قابنمada iyo dhacdhaca iyo safaha iyo salfudaydka iqtisaadka iyo dhaxdhaxaysiga arimaha la dhaxdhaxaysto una qofku arimaha marka uu ka falqaadanayo xadgudub iyo ka badbadin una la iman ka gaabinna una la iman ee uu isku dayo in wasadka iyo dhaxdhaxaadka uu ku sugnaado ilaha soo dhaniba waa juz'un min 24 juz'an min an-nubuwah وقيب كمذا أفر لباتن قيبوت والنبي نمذا كمذا بمعنى وأخلاق ذي يشمائل كي يدقن كي أنبيض إلى هايين قف كي كد إذانا قف دقن كودي وحكم ذا وحويان يشيء أي أو نقنيا إلهنا جل وعلا وإنه قد رجلي إن لقد ضيضو ضدك توصل إله جل وعلا وهجي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي إلهي جل وعلا وحو كشكي ددو توسيي oo u nimceeyay oo
nicam hidaayo iyo toosnaan iyo khayr iyo wanaaguu siiyey markaasaa la yidhi kuwaas waa kuwa ilaahay jalla wacala uu hadeeyee hanuunkooda ku dayo walaalayaal deganaanshaha uu qofku deganaanayo salfudaydka iyo maangaabnimada uu iska ilaalinaya waa tilmaamaha dadka wanaagsan ee fiican waxa weye ilaahay jalla wacala uu ku sheegay oo rabbi waxa uu yidhi wacibaadu araxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama allah araxmaanka ah addoomihiisu waa kuwa hadda eeg tilmaamta ugu horeysee la sheegay waa kuwa marka ay socdaan si degan waxweeyaan socda deganaanshay la yimaadaan sakiinay la yimaadaan dhacdhac iyo salafudeyd bay iska ilaaliyaan kuwa maangaabka ahi hadday la khitaabaan oo afkooda ay ku dhibaateeyaan oo waxaan qumanayn ay kala kulmaan waxay idhaahdaan cibaaduraxmaanku qaaluu salaama nabaday bay idhaahdaanoo safaha ay kuwaasi ula yimaadeen iyo salfudaydka iyaguna salfudeed lamida ulama tagaane nabaday bay idhaahdaan sida awgeed ayaa mar walba dadka deganaanshaha u saaxiibka ahi wa ahlu nadarin fi alcawaaqib waalma'aalaat waa dad fiiriya oo fiiro dheer oo arrimaha bal cidhibtooda dambe iyo sida ay noqon karto ayaabay aada u eegaan kana fikiraan oo waxa weeyaan ay sii fiiriyaan baynamaa dadka salfudaydka iyo dhacdhaca iyo maangaabnimada lagu yaqaano oo tilmaamta ay u tahay iyagu arrimaha markay ka fal qaadanayaan sidaan caqliyeysnayn oo ta'amul iyo fiiro iyo u fiirsasho aan lahayn ayaabay ugu dhacaan mujarad inuu waxaa sameeya inay kusoo dhacdo ayaa laga yaabaa inuu sameeyo sida awgeed dee dhaqan fiican oo wanaagsan maaho wax badan oo uu ka murugoodo ayaa xagga dambe kaga soo noqonaya laakiin qofka isagoo deganaanshaha u saaxiibka ahi badbaada laga yaabaa in fara badan adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba inuu wax weeyaan uu ku sugnaado ilaahay baana jalla wacalaa fadliga iyo dheeraadkaa bixiya waxaa laga yaabaa inagoo intaa maqlayna deganaanshaha in lagu dadaalo salfudeedka in layska ilaaliyo inagoo intaa maqlayna waa adiladii qur-aanka iyo axaadiidta iyo wacdigii walaalaheena iyo mashaayikhdeena culummada ah ayna siinayeen haddana waxaa laga yaabaa in weli dadka qaarkood salfudayd ay ka bixi laayihiin dadka qaarkoodna waqaar iyo waxaweyan deganaansho ay u saaxiib yihiin waa fadli iyo deeq ilaahay jalla wacala uu bixiyo oo ilaahay jalla wacala deeqihiisa ka mid ah walaalayaal dayshka iyo fudfudaydka iyo salfudaydku waxa uu ku badan yahay badanaa dadka dhalinyarta ah lianna dhalinyarnimadu waa meelaha badanaa madinada u ah waxoogaa ama jahliga iyo fudaydka iyo salfudaydka dembiga iyo degdega waxyaabaha caynkaasi yahay maadaama qofku qof dhalinyara uu yahay waxaa laga yaabaa in wax badan uu ka fiirsan waayo sida awgeed bay dhahdaanba dayshun shabaab ama shabaabun daa'ish yacni waa dhalinyarnimo waxa weeyaan ee sal fudud saasoo kale ay dhahdaan marka shaki ma laha qofka dhalinyarta ahi inuu yahay qof la weydiin doono oo laga wareysanayo maalinta ilaahay jalla wacalaa hortiisa uu istaago safihiisii iyo dhacdhiciisii iyo maangaabnimadiisii waa la weydiinayaa qofna ilaahay jalla wacalaa maalinta qiyaamo hortiisa ka istaagi maayo ilaa la weydiiyo su-aale ay ka mid tahay cumrigiisii muxuu kusoo dhameeyey dhalinyarnimadiisiina muxuu kusoo baaliyeeyey ayaa markaa la weydiinayaa marka mid kastoo inaga mid a waxaa laga rabaa rag iyo dumarba yar iyo weynba in naftooda ay hoggaan iyo xakame uga dhigaan sharciga ilaahay jalla wacalaa caqli iyo xikmadna ay adeegsadaan qofku inuu badbaado ayaa markaa laga yaabaa oo insha allahu tacala aan rajaynaynaa intaa hadduu la iman waayana waxaa laga yaabaa naftiisa iyo dhacdhaceeda iyo maangaabnimada uu la imanayaa in halaag ay markaa u horseedo ilaahay inaan tala saaranno ilaahayna jalla wacalaa xaggiisa u noqonno ayaa laynaga rabaa bisidqin ilaahay jalla wacalaa xaggiisa ugu noqonno ducooyinkii nabigeenana waxaa ka mid ahaa calayhi salaatu wasalaam allahuma inii acuudu bika min munkaraati alakhlaaqi waalacmaali waalahwaa ilahay waxaan kaa magan gelayaa akhlaaqda iyo camallada teeda munkaraadka ah ee xun ee liidata ayaan kaa magan gelayaa saasuu nabigeena ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam deganaanshaha aynu ku dadaalno salfudaydkana aynu iska ilaalino arrimaha cawaaqibtooda aynu eegno oo ha laga fikiro keliyaata in wax kugu soo dhacaan dheh ama samee ama la kaalay inaynu kula nimaadno maahee
in qofku xoogaa uu ka fiirsadaa isweydiiyaa qofkaas wanaagii khayr ayaa markaa loo rajaynayaa. ilaahay subxaana wa tacaala wanaagga hayna waafajiyo dhammaanteen, dembigeena iyo dembiga waalidkeena ha dhaafo, dad waqaar iyo sakiina iyo rasaana iyo deganaansho u saaxiiba ilaahay jalla wacalaa haynaga yeelo. fudaydka iyo jahliga iyo maangaabnimadana ilaahay subxaana wa tacaala haynaga fogeeyo. kelmaddaa kooban ayaan jeclaystay inaan naftayda iyo walaalahayba aan la wadaago. haadaa wasala allahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina